Tunisia waxay ku taallaa waqooyiga qaaradda Afrika. Magaalo madaxda Tunisia waa Tunis. Dhanka bari iyo waqooyi waxaa ka xiga Badda Dhexe. Dhinaca galbeed waxay xuduud kala wadaagtaa waddanka Algeria, galbeed waddanka Liibiya. Tunisia waxay ku fadhisaa dhul gaarayo 162 kiiloomitir oo isku wareeg ah. Boqolkiiba 30 dhulka Tunisia waxaa maro saxaro weyn. Waddanka Tunisia waxa uu door aad u muhiim ah ka qaatay taariikhdii hore, xilliyadii ay ka talin jireen midihii sida Berberaabiga, shacabkii lagu magacaabi jiray Qardaajiyiinta. Xilligaas waddanka Tunisia waxaa lagu magacaabi jiray gobolka Afrika oo waxay ka mid ahayd xukuumadii uu xukumayay Roomaanka. Xilligaas waxaa ka dhacay waddanka Tunisia dagaalo dhex maray Qardaajiyiinta iyo Roomaanka. Dagaalkaas oo la sheegay inuu ka mid yahay dagaaladii ugu caansanaa xilliyadii hore. Islaamka waxa uu waddanka Tunisia gaaray qarnigii 7 kadib markii ay Islaamka waddanka qabsadeen. Waxay ka dhiseen magaalada caanka ee lagu magacaabo Qayrawaan, waana magaaladii ugu horeysay ee Islaam laga dhiso waqooyiga Afrika. Waddanka Tunisia waxaa soo gumaystay gumaysigii Faransiiska gumaysigiisu wuxuu bilaabmay 1881 wuxuuna waddanka madax banaani ka qaatay sanadka markuu ah 1956. waxa uu noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Tunis yeelato Xabiib Bourguiba, waxaana xukunka hayay ilaa 1987 markaas oo xukunka u wareejiyay sababo caafimaad awgeed. waxaana talada waddanka qabtay Zayn al-Caabidiin bin Cali oo hayay talada ilaa ay shacabka kacdoon talakada kaga rideen bilowgii 2011. magaca asalka ee Tunisia waxa uu ka yimid khilaaf badan ayaa ka taagan. dadka qaar ayaa leh waxa uu ka imaaday magaca caasimadda ee Tunis. magaca rasmiga loo yaqaan waa Jamhuuriyadda Tunis. Tunis waa dawladdii ugu horeysay Carab isticmaasha internet, waxayna ahayd 1991 waxaana ku xigay dalka Kuwait oo isna isticmaalay 1992. Tunis waxaa ku yaala masrax labaad ee dunida ugu weyn marka la yimaado Carcium ee ku yaala dalka Talyaaniga. masraxa Aljam ee ku yaala waddanka Tunisia waa midka labaad ee dunida ugu weyn, waxaana dhisay hogaamiyihii Roomaanka ee Gordiyaankii labaad. waxaana la dhisay sanadka markuu ahaa 1970. marka la dhisay wuxuu ahaa meel lagu legdamo iyo meel lagu ciqaabo qofkii dowladda qaladka gala. Tunis waxaa ku yaala masjidka weyn ee Al-Qayrawaan, waana masjid ka mid ah masaajidda taariikhda dheer ku leh diinta Islaamka, waxaana dhisay Cuqba bin Naafic. wuxuuna ku yaala magaalada Qayrawaan, waana masjidkii ugu horeeyay ee laga maqla adinka Islaamka ee qaaradda Afrika, waxaana la dhisay qarnigii 7. magaalada Qayrawaan waa magaalada afraad ee ugu hormarado Basra iyo Kuufa oo ku yaala Ciraaq iyo Fustaad oo ku taalay Masar. waxaana magaalada Qayrawaan ay ka qayb qaadatay faafinta diinta Islaamka, waxaana la dhisay sanadka markuu ahaa 670. Qayrawaan waxay door muhiim ah ka qaadatay faafinta diinta Islaamka ee galbeedka Afrika, waxaana laga helaa raadadkii asxaabada Allah ka raali noqday. waxaa lagu magacaabaa midda afaraysa saddexda, yacni waxay leedahay ahmiyadda afaraad marka laga yimaado Makal Mukarrama, Madiinatul Munawwara iyo Qudus. midda afaraad waa Qayrawaan. Tunis waa waddanka ugu soo saaridda badan saliidda zaytuunka, waxayna kaalinta koowaad kala baxday sanadka markuu 2015 dalka Spain oo ahaa midka ugu soo saaridda badan saliidda zaytuunka. waxayna sanadkii xaqiijisaa 300,000 oo tan oo saytuun ah, waxayna waddanka ka tahay saliidda saytuunka 30% wax la beerto oo dhan. sidoo kale waxaa jiro geed zaytuun oo macruuf ka ah waddanka Tunis, waxaana lagu magacaabaa Al-Akris, waxaana ku yaala magaalada Tadaawiil. waxayna khubarada ku sheegeen geedkaas midka ugu dheer ama ugu cimriga dheer dunida marka laga hadlayo geed zaytuun ah, waxaana la qiyaasaa inay jirtay in ka badan 9 qarni, yacni 900 sano. ninka iskale geedka ayaa sheegay inay jirtay xilligii ama cahdigii Roomaanka uu xukumayay waddanka Tunis. Tunis waxaa ku taala jaamacaddii ugu horeysay ee muslimiinta asaaseen, waana jaamacaddii lagu magacaabo Zaytuun, waxaana casharkii ugu horeeyay jaamacaddaas laga bixiyay 737 miilaadi. waxayna door muhiim ah ka qaadatay faafinta diinta Islaamka. waxaan halkan ku soo koobaynaa macluumaadkii aan idinkaga soo diyaariyay waddanka Tunisia. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.